arrinta nabadda iyo midnimada oo aan safar halkan intaan uga tagnay aan u tagnay Laascaano oo aan ku soo guulaysanay waxaan u mahadcelinayaa maamulka iyo shacabka reer Khaatumo oo nagu ixtiraamay isla markaana sababay in safarkaasi iba fur u noqdo in nabadii bilaabanto oo aad ogtihiin furaheedii oo furaha nabadda uu yahay in dadka Soomaaliyeed ee maxaabiista ah ee meelaha lagu kala haysto in la sii daayo runtii arrintaas way bilaabatay ayaga noo bilaabay waan ku dadaalnay wayna isdaba socotay cid kasta oo ka qayb qaadatay kuwii hore ee aan halkan keennay ee Hargeysa la geeyay iyo kuwii dambe ee Garowe laga soo dejiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay waa ku amaanayna waa ku mahadsanyihiin waa miftaax ama fure midnimada iyo nabadda Soomaaliyeed way arrintaas haddaan Soomaali nahay ceeb bay nagu tahay dhaqanna inooma ahayn haddaan xatal dirirno inaan maxaabiis kala qabsano waxaan u baahan nahay in la sii daayo dadka Soomaaliyeed ee xag iyo xagaba ku xiran ayada oo taas lagu bedelayo midnimo walaalnimo isdhexgal iyo is-ixtiraam waxaan amaanayaa saddexda maamul Somaliland SSC Khaatumo iyo Puntland oo shaqadaas qabtay aad iyo aad u mahadsan